hangarkan oo kale qarshaad badan buu u baahan yahay taqriiban hangarkanu adigu 400 kun buu ku kici karaa laana qalabka la keenay waad aragtaa waa ulumiyaan oo aan daxalku karayn waa qalabka iska ilaalinaya daxalka ilaa meesha maadaama ay batahay yaraan 400 iyo saayid buu dhaxayaa laakiin de mushtarik baa lagu noqon karaa wax dhiba waa shirka lagu noqon karaa mushtarik baa lagu noqon karaa annagu tusaalaan u nahay yaani dadku inay ku soo dhiiradaan adigana aad baanu kaaga mahad celinaynaa sababtoo ummaddu waxa way waa indha kumiirre markay wax arkaan ayay xaqiiqada helaan laakiin haddii wax lagaaga sheekayo aadan xaqiiqadii arag dee shaki baa ka qaadaysaa laakiin ummaddu waxay maantaba ka shaki bixi ka dhac dekadiina waa dhisatay waana socotaa hangaradiina waa kaas maanta waxaynu ku sugannahay goob ka mida magaalada Garacad dabcan goobtan aad arkaysaan ee maanta aynu ku sugannahay waa hangar ama meelaha kaydka ah ee laga dhisayo magaalada Garacad meel magaalada waxa xeer ka baxsan banaankeeda ayaa laga dhisay xaruntan waxa ila jooga nabadoon salaad oo ah shakhsiga gacanta ku haya hawshan nabadoon soo dhawow waxaad warbixin yar naga siisaa bal hangarkan iyo meesha laga dhisay iyo qaabka loo dhisay iyo magaalada hangarada iyo baahida loo qabo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin farxaan aad baad u mahadsan tahay waana ku soo dhaweynaynaa hangarkan waxaa loo dhisay maadaama waddanka uu horumar ka socdo oo laga asaasay deked cusub waxa weeye dekeda iyo hangarada iyo waddooyinku waa isleeyihiin dekeddu waa inay hangar heshaa lagu kaydiyo badeecadaha kala gedisan oo ka soo degaya waa in la helo meel lagu kaydiyo in lagu soo dejiyo dee waxa weeye waa hordhaci dekedda hangarkan waa hangarka ugu weyn oo lambar 1 ah hangarro kalena waa ku soo daba jiraan shirkado badan baa raba inay magaaladan maalgeliyaan oo ka dhisaan hangarro badan hangarkanu dhererkiisu waa 130 ah weeye waa aragtaa sida hawsha uga socoto sida loo dadejinayo waxaa la rabaa insha Allah in laga faa'iideysto dekedan shirkado badan ayaa wadaaga oo mushtarik ku ah shirkaduhuna dee waa shirkadaha maalgashaday dekeda weeye shirkadaha dekeda maalgashaday weeye hangaradiina haddaanu bilownay maadaama dekedii ay miro dhashay oo miraheedii la guranayo dee hangaradiina waa in la helaa marka hangar kaleeto oo magaalada laga dhisay baa jira oo magaalada dhexdeeda kanuna waa hangarkan dibadda magaalada ka yahay mid kale dekeda laga dhisay mid kale jira oo dekeda laga dhisayo kan ugu weyn ah kaas waa kaydkii dekeda oo isagu customiska iskale oo dekeda alaabta bagaashka iyo wixii dekeda ka soo dega ayaa isaga iskale bakhaarada dhismayaasha aftoodu kan waa hangarkii badeecadaha lagu xirayn lahaa وكله مثلا dhinaceeda laga dhisaya markaan ka dhamayno baan bilaabeynaa kuwa kale hangarra kala la bilaabaya waa horumarka insha Allah la rabo in la higsado oo higsiga ay kamid yihiin marka aad baan ku soo dhawaad waayahay nabadoon aad baa u mahadsantahay dabcan waxaan aragnaa in ay isku tashi badan oo dalka socdo xogaa magaalada waa ka soo durugsan yahay hangarkan waxaad moodaa inuu xogaa ka durugsan yahay maxay tahay ujeedada aad magaalada xogaa looga soo durkiyay hangarkan sideedaba hangarrada kaydka ah waa in magaalada laga dhex saaro magaalooyin badan baan ku ogaanay hangarrada ama istoorada laga dhex dhiso magaalada dhibaatada ay magaalada ku keeni karaan marka maadaama la rabo magaaladu inay magaalo kordho rabto la rabo hangarrada waa in darfaa laga dhisaa si aan uga iman saxmad uga iman baabuurtu dariiq waayin dadka shacabka iyo gaadiidka wax raranaya waxaan uga soo fogeyn inaanays arag sababtoo ah waxa weeye magaalooyin waaweyn oo kaleeto oo dekedale ayaan casharkan ka soo qaadanay marka hangarrada kalena darafteeda magaalada darfaheeda laga dhisayaa marka waa sidaas ka liftay way nabadoone waxaa jira dad badan oo ku haminaya inay Garacad ka sameeyaan maalgashi hangarradan oo kale inay sameystaan ku boorin lahayd oo maadaama meeshii deked weyn laga sameynayo waliba jambiyada dambe ee waaweyn markay furtaan baahidu ay badanayso ma sha Allah waxa weeye annagu tusaalaan u nahay yaani dadku inay ku soo dhiiradaan adigana aad baanu kaaga mahad celinaynaa sababtoo ummaddu waxa weeye waa indha kumiirre markay wax arkaan ayay xaqiiqada helaan laakiin haddii wax lagaaga sheekayo aadan xaqiiqadii arag dee shaki baa ka qaadaysaa laakiin ummaddu waxay maantaba ka shaki bixi ka dhac dekediina waa dhisatay waana socotaa
hangaradiina waa kaas way qofkii markaa rabaa inuu ku dhiirado ama isku dayo maxaad oran lahayd markaas oo tala ahaan koostiga qofka inuu ku xisaabtamo u baahan yahay dhaqaalaha waqtiga wuxuu u baahan yahay inuu ku xisaabtamo laga yaabo qofkaas inaysan awoodiisaba ahayn marka awood intee la eg baa loo baahan yahay in hangar la dhiso noocan oo kale taa wallaahi waxay u baahan tahay hangarkan oo kale qarshaad badan buu u baahan yahay taqriiban hangarkaanu adigu 400 kun buu ku kici karaa لأن قلب كلا كيني وهذا ركتا وألوميان وأنا دحلكوا كرين وقلب كإسكايل علينا يدحلك إلى ماشي ما دام يبطها ويران أفر بقول السايد بقول لكن ده مشترك بالغون نقون كرايا وحدي با وروش الشركة بالغون نقون كرا مشترك بالغون نقون كرا وحوي وحي نندي با نما يال مدي با marka waxaan leeyahay hal lagu soo dhawaado magaalada hal maal gashado sidaas oo kale toona hangarada magaalada in laga fogeeyo oo banaanka la dhiso shacabka iyo aanay is aragaadid baawur waaweyn baa ilaa xamuud keenaysa baawur baa imanaysa marka saasaan ku boorineynaa wayna wadana aad baa u mahadsan tahay waxaan leenahay sidoo kale to ganacsatada waxay haystaan ama cid kastoo dhaqaale haysata maanta waxay fursad u haystaan inay ka faa'iideystaan degmadan ama magaaladan soo kobcaysa oo dekada heshay isla markaasna fursado badan ay ka bannaan yihiin tan waxay ka mid tahay fursadaha magaalada ka bannaan sidoo nabadoonku noo sheegay oo keenaysa in dadku ay ku soo dhiiradaan inay alaabtooda dhigtaan in badeecadii lagu dajiyo هذا نبضونكو وحشة إن ما نقول دون تمشان مشترك لقيا أما الشركة ساسو كلا يا سمين كرتان أفرق في شنقة في تأسو تجان شن بقولة كنا كوك عضو شنقة من بقول كنا وحنا سمين كرتان ويقول كيس أنا كده حلية بكدي بقولي إذا فرن أنا الكود شن كرتان ما حشركوا إذا فرن ودوين كيوا فرن فرصة كفاية يستان لنا ودون أدو ما سنت هذه أدو ما سنت هاي أدو ما سنت هاي ما دام أدبان وكوسو دويننا أدو ما سنت سابتو ومدة هنا أدو بندكتو ومدة كل يردان أدبان وكوسو دويننا أدو ما سنت